guys marba joogtaan welcome back magacaygu waa Max kaasoo doonaya mar walba in la shargareeyo cryptocurrency-ga investment-ga iyo fursadaha kale asleeyahay asxaabtu way ka faa'iideysan karaan. Video waxaan uga hadli doonaa coin market cap maxaa la dhahaa, muxuu faa'iido leeyahay, sidoo kale qaabkee markaasi ugu faa'iideysan karaa coin market cap si aan cryptocurrency macluumaadkiisa aan la socdo. Haddii aad markaas channelka cusub tahay please subscribe my YouTube channelkayga si mar walba video aan soo dhigo oo ku soo gaaro, sidoo kale gambalelka ku dhufo automatic ah oo video aan ku soo diro isla markii uu ku soo gaaro. Sidoo kale ha iloobin in video like iyo subscribe aad saarto. Guys haddii aad markaas cryptocurrency wax badan la xiriirana aad doonayso waxay igala soo xiriirtaa Facebookayga Max Ifojer, khaasatan wixii su'aal ah qabtane waxay ugu soo dirtaa Instagramka Max Ifojer kaasoo update walba cryptocurrency la xiriira aan toos u soo dhigo. Marka guys video waxaan hadli doonaa coin market cap iyo qaabka uu shaqeeyo. Disclaimer waxaan sheeganaa mar walba haddii aad doonayso inaad markaas aad ka faa'iideysato investment wax la xiriira only invest what you can afford to lose. maanta marka waxaa waaye coin market cap iyo qaabka uu shaqeeyo. coin market cap markaad doonayso inaad ogaatana marka ugu horeyso qaybta search engine waxaa ku qoraysaa coin market cap coinmarketcap.com kadib waxaa kusoo bixi doono automatic website-ki. haddii markaas oo coin market cap kaliya ku qoray .com aad raacsiiso isla automatic wuxuu kusoo saari doonaa website-ka oo ay ku midoobeen dhammaan coinada markaas available ku ah suuqa yaala, trade-ka la sameeya, everyday trade-ka laga sameeya, haddii la joogo Binance, haddii tahay Bittrex meesha ay price ay ka fiiriyaan Bitcoin-ka, sidoo kale Bitcoin qaabku oo isku badbadalo maadaama Bitcoin uu yahay fluctuation price-kiisana markaas uu yahay volatile. macnaheedu volatile waxa waaye qiimo oo sugan ma lahan, wuu isbedbedelaa 24 hours oo isbedelaa, 1 hour oo isbedelaa, macnaha every minute every hour waa isbedbedelaa price-kiisa. coin market cap kadib markaa dhahdo meeshaan waxaa ku arki doontaa waxa waaye cryptocurrency-ga waxaa hadda waqti xaadirkan video aan create gareeyay oo February 18 waxaa suuqa xaadir ku ah 2124 cryptocurrency ayaa xaadir ku ah, waa 2124. sidoo kale waxa waaye marketkan waxaa industry-gan ama coin market capkiisa uu gaarayaa waa billion ayuu gaaraa, waa 118 billion ayuu gaaraa industry-gan. volume-giis 24 hours-ka oo trade-ka la sameeyana wuxuu gaaraa 45 billion wuxuu gaaraa volume-kiisa 24 hours-kana waxa waaye 45 billion waa. Bitcoin dominant-giisana waa 51 waa percentage hadda waxa xoogaa uu iska hooseeya marka loo eego mining iyo wax la xiriiro kale maadaama Bitcoin price-kiisa uu ka soo kacay 16,000 oo kale iyo 15,000 meelahaas hadduu tagana waxa waaye Bitcoin price-kiisa markaas waa xilliga markaasi ugu fiican yahay. hadda waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad Bitcoin inta awood karaankaaga uu yahay aad iibsato aad haysato markaa is leedahay Bitcoin price-kiisa markuu moon uu tago waxa waaye waa ku faa'iidi doontaa. hadda waqti xaadirkan kula hadlayna waxa waaye Bitcoin prediction waaye waxa waaye wuu socdaa price-kiisa 30,000 hadda ka kacay wuxuuna joogaa waqti xaadirkan video create gareynayna waxa waaye waa $5,312 ayuu joogaa. marka imaana marka oo ma doona qaabkaas price prediction-ka video gaar aan u hadlayno way jirtaa. waxaa kaloo ku arki doontaa description-ka hoos hamogaanin inaad markaas videos aad daawato price prediction-ka. laakiin video price prediction ugu hadli doona waxaa hadli doonaa kaliya coin market cap iyo qaabka uu shaqeeyo. qaybtan waxaa loo yaqaanaa waa cryptocurrency-ga waaye magacyadooda inta ku taxan Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin. taan kugu hore idin tusi doonaa inta kale way ila mid yihiin. waxaa kaloo ka mid ah Bitcoin Cash, Litecoin iyo iOS, Binance oo ayadan trade ah. daas waa top 10 oo cryptocurrency-ga. qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa waa exchange-yada markaas oo trade ka sameeya isbedbedela. waa qaybtan aan ku dhufanay waa ka arki doontaa video mar inaan ugu hadlo top 10 100-ka oo ah. qaybtan waxa waaye marketka ama coin-kan suuqa waxa uu ku joogo waa suuqa wuxuu ku joogaa marka oo market cap ahaan Bitcoin ay ku fadhiso suuq ahaan waa 93 billion ayay ku fadhisaa.
priceka waqti xaadirkan bitcoin oo 1 bitcoin waa 5312 priceka waqti xaadirkan volume-ka 24 hours-ka la generate gareeyo trading lagu sameeya oo suuqa xaadir ku ah every 24 hours la adeegsadana waxa waaye bitcoin 13 billion waa 13 billion waa sidoo kale waxa waaye current supply dalbashada waqti xaadirkan oo la dalbanayo ilaa bitcoin wuxuu ku xiran yahay supply demand waa supply-ga marka waxa waaye waqti xaadirkan lasoo dalbanayna 17 milyan waa marka waxaa ujeedaa marka bitcoin inuu yahay hooyada cryptocurrency-ga qaybtan waxa waaye graafka price-ku isbedela down up down up down up waa markuu price-ka kor u kaco waa markuu uu yahay hoos hadda waxa waa waqti 1 month ka hor 13,000 the moon 4,000 moon kale wuxuu noqday 5,000 ayuu hadda price-kiisa u joogaa ethereum ka mid ah ethereum hadda waqti xaadirkan waxa waaye coin market cap-keeda wuxuu gaaraa 18 bilyan price-keeda waxa waaye ethereum waa 117 volume-keedana waxa waaye waa 6 bilyan current supply-geedana waxa waaye waa 105 milyan waa 4 hours-na waxa waaye waa 4.15 ayaa lagu sameeyaa trade price-keedana waa fluctuation mar wuxuu tagay 1200 ethereum ay tagtay price-ka cryptocurrency waa isbedbedelaa ripple ka mid ah coin market cap-ka waxay ku fadhisaa waa price-kan price-ka waqti xaadirkan waa intaas volume-keeda waa kaas sidoo kale supply-geedana sidoo kale waa bitcoin cash la mid ah waa market cap-keeda intaan waaye waa price-keeda sidoo kale waa ujeednaa sidoo kale volume-keeda current supply-geeda janji 24 hours-ka isbedbedelada ku dhaca waa 0.15% litecoin la mid ah bitcoin cash la mid ah ios la mid ah binance la mid ah marka guys haddii aad doonayso marka inaad ka faa'iidaysato cryptocurrency-ga laba qaabood lagu faa'iidaystaa investment inaad trade aad sameyso haddii aad labadooda u baahan tahay waxay kaga soo xiriiri kartaa facebookgayga kaasoo markaas aan kula wadaagi doono wax badan oo markaas la xiriira cryptocurrency-ga investmentiga sidoo kale waxaa guys mar walba ogaataan in markaas online lacag laga sameyn karo yar oo asxaabtii ugu xirana $1,000 ayuu dhigtay $700 ayuu markaasi la baxay stiilna waxa waaye $1,000 oo shaqeysa maalintii wuxuu helaa $1,000 dhigtay maalintiiba $10 ayuu helaa kaasoo markaas uu faa'iido ku sameeyo as online asoo shaqooyinkiisa kala caadi iska wata guys haddii markaas aad doonayso wax badan oo cryptocurrency la xiriira sidoo kale waxaa qaabka online uga sameyn karta channelkayga ha moogaane subscribe dheh sidoo kale video like saar sidoo kale waxaa video badan oo aan diyaariyo ku diyaarsan oo cryptocurrency way jiraan daawo guys bye bye